Asalaamu calaykum. Kulan wacan oo wanaagsan meel kasta dunida ka joogtaan. Maanta waxaan doonayaa inaan si kooban uga hadalno dawooyinka loo isticmaalo in la isku caddeeyo amaba lagu dhala rabo maqaarka. Dawooyinkan ayaa ah kuwo soo badanaya guud ahaanna Soomaalida marka laga hadlayo, iyadoo dumarka iyo raggu ay waayadii dambe aad u isticmaalayaan. Gaar ahaan marka laga hadlayo waxaa aad u isticmaalaa haweenka da'da yar iyo weliba ragga qaarkood, walow ay raggu hadda ku yar yihiin sida lagu sheegayo xogo la qaaday. Haddaba waxaan eegi doonaa halista ay dawooyinkaasi ay ku yeelan karaan caafimaadka qofka. Hordhac ahaan marka laga hadlayo dawooyinka loo isticmaalo in la isku caddeeyo ma aha wax caafimaadka u roon ama u wanaagsan, inkastoo ay sii kala daran yihiin iyaga laftigooda. Waxaa jira halis fara badan oo laga dayrinayo inay qofka caafimaadkiisa ay u keeni karaan. Waxaa ka mid ah kansarka ku dhaca maqaarka ama dubka iyo dhibaatooyin kaleba ah. Haddaba dawooyinka la isku caddeeyo waxaa jira dhowr nooc, waana sii kala daran yihiin. Tusaale ahaan, ta koowaad haddaynu soo qaadanno, nooca lagu daray dawada loo yaqaano steroidka waa dawo lagu daweeyo xanuuno badan oo ku dhaca maqaarka sida cambaarta oo kale. Waxaa la qaataa qiyaas go'an ama loogu talagalay qofka bukaanka ah, lamana oggolaado qofka in la siiyo waqti dheer, taas oo keeni karta waxyeello jidhka ay u geysan karto. Laakiin dawooyinka la isku caddeeyo waxaa lagu soo daraa qiyaas aad u badan oo dawadan ah steroidka, iyadoo halis gelinaysa caafimaadka qofka. Laba, waa nooc ka samaysan waxyaabo yareeya midabka maqaarka ee loo yaqaano melanin. Waxyaabahaas oo qaarkood ka mamnuuca dunida oo aan lagu soo dari karin, laakiin shirkadaha qaar ayaa ku soo dhex qariya. Waxaana ka mid ah maadada loo yaqaano mercury oo sun ah haddii ay jidhka ay u gudubto ama ay soo gasho, waxaana keentaa kansarka maqaarka ku dhaca. Ma jiro kaliya ka samaysan faytamiino ama khudrad ama waxyaabo dabiici ah oo maqaarka bedeli kara. Dad ayaa si khaldan u aaminsan in wixii ku qoranba geed daweed ama dabiici ah ay tahay wax sax ah oo la marsado. Iska ilaali, waa istiraatiijiyad ama hab loogu talagalay in shirkadahaasi ay u iibgeeyaan ama suuqa ay uga iibiyaan waxa ay markaa ay doonayaan in ay markaa dadka ay ka helaan macaash badan. Haddaba dhibaatooyinka ugu badan ama calaamadaha lagu arko ee ay dawooyinka maqaarka dhalan roga ama bedela ay keenaan waxaa ka mid ah maqaarka oo midabka ka guuro oo aanu soo laabanin. Laba, in maqaarku noqdo mid khafiif ah oo halis ugu jira in dhaawac kasta uu soo gaadho, xitaa dhaawacyada fudud ayaa ku waxyeeli kara. Markuu dhaawacmana way adag tahay inuu maqaarkaasi markaa sahlan u bogsado marka loo eego siduu ahaan jiray. Midabka maqaarka oo kala duwan, maadaama dawooyinka la mariyo aanay isku mid ahayn, isla markaana si isku mid ah aanay maqaarka markaa aanay uga dhigi karin midab isku mid ah. Maqaarka oo guduuta ama casaada, nabara yeesha oo marka ay cadceeddu ay ku dhacdo, isla markaana uu qofku awoodi kari waayo in markaa cadceeddu u baxo. Cuncun siyaada ah, jidhka oo xasaasiyad ama allergy yeesha. Calaamadaha aan sheegnay waxay ka mid yihiin calaamadaha ay keeni karaan dawooyinka la isku caddeeyo ama kiimikada halista badan ee ku jirta. Dawooyinka la isku caddeeyo qaabka ay u shaqeyso waa qaab ay yareynayso ama baabiinayso sidan hore u sheegnay maadada loo yaqaano melanin oo qaabilsan midabeynta maqaarka jidhka, taas oo ugu dambeyntiina keeni karta boqolkiiba 90 in ka badan waxa loo yaqaano kansarka maqaarka ku dhaca. Haddaba talooyinkan soo socda waxa ay ku aadan yihiin cid kasta oo isticmaasha. Marka koowaad waa inuu qofku u ogsoonaado in Ilaahay uu dooray inuu midabkan isagu markaa uu qofkaasi u yeesho, waana deeq Ilaahay bixiyo. Dad ayaa inta badan la dala dhacaya cudurro ku dhaca maqaarka, markaa hallaynin ama waxa yeelin maqaarkaaga. Ka ilaali wax kastoo maqaarkaaga hoos u dhigaya. Daraasad la sameeyey waxaa lagu ogaaday in boqolkiiba 80 dadka isticmaalay dawooyinka la isku caddeeyo ay ka qomamoodaan ama ay ka shanlayaan marka dambe sida ay ugu noqon lahaayeen maqaarkoodii dabiiciga ah Ilaahay u sameeyey. Intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijkeena oo naga hadlaynay dawooyinka la isku caddeeyo iyo halista ay leeyihiin. Waa ku mahadsantihiin dhegeysigiina.